kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada war wixii dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray. Sheekh Aadan Sunne wadaadkii Somaliland ka soo cararay oo al-shabaab ka soo dhaxadlay. Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame loo yaqaano Sunne oo dhawaan ay mas'uuliyiinta Somaliland ku dhawaaqeen inuu ka baxsaday magaalada Hargeysa oo uu deganaa ayaa wareysi siiyay BBC-da isagoo ku sugan deegaanada ay maamulaan kooxda al-shabaab. waxa uu xaqiijiyay inuu ka soo baxsaday Somaliland isagoo eedeyn u jeediyay maamulka jamhuuriyadda iskeed madax banaanida uga dhawaaqday ee Somaliland. Magaalada Hargeysa waxaan ugu soo baxay aniga oo reerkaygii wata in wadankii aan ku dhashay oo aan ka ahaa nin culimo ah oo ka howlan dacwada islaamka iyo tarbiyada islaamka ay igu timid carqalad xoogan oo ku wajahan hawshayda taasoo igaga timid nidaamka ka jira meesha, ayuu yiri. Sheekh Aadan Sunne ayaa BBC-da u sheegay inuu hadda ku sugan yahay meelaha ay gacanta ku hayaan xoogaga al-shabaab ee fadhigoodu yahay Soomaaliya. Hadda waxaan joogaa meel ka mid ah dalkaygii Soomaaliya, gaar ahaan ku suntan qeybaha wilaayaadka islaamka ay gacanta ku hayaan, waxaana ka dhex mushaaxaya wilaayaadka 11 ah ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab, ayuu yiri Sheekh Aadan Sunne. dhowaan ayay ahayd markii xukuumadda jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday ee madax banaanida ee Somaliland ay shaaciyeen in sheekha caanka ah ee ka baxsaday Somaliland isla markaana uu aaday dhanka koonfurta Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka ammaanka ee Somaliland Cabdullaahi Xuseen Maxamed oo BBC-da la hadlay ayaa xilligaasi sheegay in ay weli wadaan baaritaano la xiriira baxsashada sheekhani. wararka aan hayno waxay inoo sheegayeen in niman ay saaxiibo yihiin oo koonfurta jooga oo barigii horeba lagu xaman jiray inuu afayeen u noqdo uu tagay. wararkana soo gaaraya waxa ay sheegayaan inuu ku sugan yahay gobolka Jubbada Dhexe, ayuu yiri Cabdullaahi Xuseen, wasiir ku-xigeenka arrimaha ammaanka ee Somaliland. Sheekh Aadan Sunne wuxuu doontay hoggaanka al-shabaab. waxaa la isla dhexmarayay in sheekhu deegaanada al-shabaab maamulaan uu u tagay si uu u qabto xilka madaxa al-shabaab. isagoo qodhiisa ayay weydiisay su'aashaasi BBC-da inkastoo uu beeniyay jiritaanka wararkaasi. hadda ma uusan gabi ahaanba meesha ka saarin inuu al-shabaab hoggaanka u qaban karo. arrintaasi waa mala awaal, anigoo cidna lama wadaagin erey noocaasi oo kala. hadday dadku laabtayda waxa ka guuxaya ee mala awaalayaan xaq uma lahan, oo laabtayda waxa ku jira alle oo keliya ayaa og. laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa wixii mas-uuliyad diimeed ah ay qabsada ee laasim igu noqda anigoo diyaar u ah oo alle ugu dhowaanaya, haddana ma jecli madaxnimo, ayuu yiri Sheekh Aadan. Sheekh Aadan Sunne ayaa dhanka kale xaqiijiyay wararka sheegaya inuu dhammaan xubnaha qoyskiisa soo kaxaystay, ehelkiisa oo dhanna ay la joogaan meesha uu joogo. BBC-da ayaa Sheekh Aadan Sunne weydiisay halka uu soo maray marka uu ka soo cararay Somaliland, balse waxa uu muuqday inuu ka gaabsanayay. horey ayaa sheekhani marar kala duwan looga xiray gudaha Somaliland, balse waxa uu sheegay inuu ku kalsoonaan waayay hannaanka garsoorka jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday Somaliland. Sheekh Aadan ayaa lagu yaqaanaa inuu muxaadarooyinkiisa ku daro tixiyo gabiye ah oo uu ku sheego qaybo ka mid ah hadalladiisa. iminkana Ruushka, waqtiga uu Ruushka qaamaha isaga bixin lahaa oo fooda soo ah, Ruushka ayaa ku andacooday inuu dulsaar fiican siiyay maalgashadayaasha caalamiga ah isagoo iska ilaalinaya inuu ka baaqsado bixinta deynta. cunaqabataynta reer galbeedka ayaa lagu soo rogay Ruushka kadib markii uu ku duulay Ukraine iyadoo laga xayiray helitaanka kaydka lacagaha shisheeye. Ruushka ayaa sheegay in ay bixiyeen lacag dhan 117 milyan oo dollar, balse maalgashadayaasha aan weli la bixinin. haddii lacagta aan la bixinin 3 bisha Abriil, waxaa markaa ay noqonaysaa inuu deynta iska bixin waayay Ruushka. isagoo ku dhawaaqayay in Ruushku uu bixiyay deynta, ayuu wasiirka maaliyadda ee Ruushka Anton Siluanov uu sheegay in uusan hubin in lacagtaasi ay dhaafi doonto waqtiga loo qabtay in ay bixiyaan cunaqabataynta saaran darteed. waan haysanaa lacag, waanu bixinay lacag. hadda kubadda waxay taallaa maxkamadda, gaar ahaan mas-uuliyiinta Mareykanka. waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in cunaqabataynta hadda aysan ka hor istaagi doonin Ruushka inuu lacagta bixiyo. inkastoo jahwareer badan jiro, haddana haddii deynta aan ugu dambeyntii la bixinin dhammaadka 30 maalmood ee soo socda, waxay micnaheedu noqon doontaa inay Ruushka ku guuldareysan doonaan bixinteeda. wakaaladaha qiimeynta amaahda ayaa ka digtay in ay suuragal tahay in deynta uu Ruushka iska bixin waayo. waa maxay sababta uu Ruushka uusan u bixin karin deynta? dowladda Ruushka iyo shirkadaha sida Gazprom, Loikil iyo Sberbank
waxay ku leeyihiin ku dhowaad 150 bilyan oo dollar maalgashadayaasha ajnabiga ah. inta badan lacagtaasi waa dollar ama euro. dulsaarka iyo dib u bixinta waa inay noqoto labadaasi lacagood, balse cunaqabataynta la saaray kadib markii ruushka uu gudaha u galay Ukraine ayaa laba micno ah inuu lumiyey in badan oo ka mid ah kaydka sarifka lacagaha qalaad oo dhan 630 bilyan oo dollar. si kastaba ha ahaatee, wuxuu ruushku weli shidaalka iyo gaaska kusii iibiyaan dollar iyo waxyaabaha kale ay dibadaha u iibgeyso. dii ruushku uu ku guuldareysto bixinta lacagtani, waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ay deynta iska bixin waayaan tan iyo 1998. waxaa kale ay noqon doontaa markii ugu horeysay uu ku dhaco deynta lacagta ajnabiga ah tan iyo kacaankii 1917 markii dowladda cusub ee Bolshevik ay diiday inay aqoonsato deymaha ugu dambeeyay. saameyn intee la-eg ayay ku yeelanaysaa ruushka haddii uu deymaha iska bixin waayo? markasta oo ruushka ku guuldareysto bixinta deynta, waxay u badan tahay inay sii murjin doonto dhibaatooyinka dhaqaale ee ruushka haysta. ka hor inta uusan duulaanka ku qaadin dalka Ukraine, ruushka waxaa lagu tirin jiray mid ka mid ah dalalka ugu deynta yar caalamka, iyadoo ay hooseyso deymaha lagu leeyahay. laakiin arrimuhu si weyn ayay iminka isu bedeleen. iyadoo taasi ay jirta, dhaqaalaha ruushka ayaa la filayaa inuu hoos u dhaco 7% sanadkan sababo la xiriira cunaqabataynta. sicir bararka bisha Febraayo waxa uu ahaa 9.15% ka hor duulaankii Ukraine. hadda waxaa la filayaa inay si weyn kor ugu kacdo sanadkani, inkastoo bangiga dhexe ee ruushka uu kor u qaaday dulsaarka 9.5 ilaa 20%. ugu dambeyntiina, wararka aynu ka helayno Pakistan ayaa waxaa laga soo warinayaa inay xildhibaanada dalkaasi Pakistan ay doonayaan inay xilka ka xayuubaan Imran Khan. ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayay u badan tahay in xilka laga tuuro, iyadoo golaha qaranka lagu wado in jimcahani cod mooshin ah oo kalsooni kala noqoshada ay u qaadaan xukuumadda talada haysa, sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Reuters. isbahaysi ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaradka ayaa codka kalsoonida u gudbiyey ra-iisul wasaaraha, iyagoo sheegay in dowladiisa ay sidoo kale lumisay aqlabiyadda. dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Imran Khan, Tehreek Insaf ayaa sidoo kale u goostay dhinaca mucaaradka. waxay u baahan yihiin in ugu yaraan 172 cod ay ka helaan 342 xubnood oo uu ka kooban yahay baarlamaanka Pakistan si ay ugu adkaadaan Imran Khan. waxaa jira warbixino sheegaya in tiro xildhibaano ah oo ka tirsan xisbiga PTI ee Imran Khan oo hadda la rumaysan yahay inay ka codeeyeen xisbigooda. hoggaanka xisbiyada mucaaradka Pakistan ayaa ka codsaday xildhibaanadooda inay ku ekaadaan Islamabad si ay u xaqiijiyaan joogitaankooda fadhiga baarlamaanka qaranka ka hor codeynta mooshinka kalsooni la'aanta ee ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan. sida laga soo xigtay hogaamiyayaasha mucaaradka, afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa qaban kara kalfadhiga baarlamaanka waqti kasta, waxauna uu faray xildhibaanada xisbiyadooda inay ku sii sugnaadaan Islamabad. sidaasi waxaa qortay warbaahinta RIY News. iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee sii kordhaya ee ku xeeran mooshinka kalsooni kala noqoshada, waxay arrintaani Imran Khan ugu sii daraysaa waa ciidamada Pakistan ee awoodda badan oo arrintaasi oo dhan iska fogeeyey. sida laga soo xigtay xogta sirdoonka, 4 jarnaal oo sarsare oo ay ku jiraan taliyaha ciidamada Jenaraal Qamar Javed Bajwa iyo agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka ECLT Jenaraal Nadeem Ajum ayaa u sheegay Imran Khan inuu iscasilo. Imran Khan, laacibkii cricketka ee noqday siyaasiga, waxa uu sanadkii ugu horeysay xafiiska la kulmay caqabada aad u badan. waa xil ay dad badani ku fikirayeen in uusan weligii ku guuleysan karin. kadib muddo 20 sano ah oo loolanka siyaasadda uu ku jiray, waxa uu guul ka gaaray doorashadii 2018. waa qayb weyn oo ka mid ah shaqada siyaasadda. wuu ku adkaystay inkastoo sida roobka ah oo ay ugu da-ayaan eedo la xiriira in militariga awoodda leh ee Pakistan oo si toos ah iyo si dadbanba u maamulay dalkaasi tan iyo xorriyaddii ay si hoose ugu shaqeeyaan faa'iidada xisbiga PTI. fikradaasi iyo caqabadaha kale ee badan ee Pakistan ay wajahayso waxaa la filayay in sanadkii ugu horeeyay uu noqoto mid fudud oo fiican. khudbadiisii ugu horeysay kadib markii uu guuleystay, waxa uu caleen u ruxay dalka ay muddada ishayeen, waxaana uu ku dhawaaqay haddii Hindiya ay tallaabo dhankeeda u soo qaado, innagana 2 tallaabo ayaan dhankooda u qaadaynaa. si uu arrintaasi u xaqiijiyo, waxa uu durbadiiba amray horumarinta marinka Kartarpur, kaasi oo matala wada shaqaynta dhifka ah ee ka dhexeeya Hindiya iyo Pakistan. wuxuuna suurageliyey in dadka Sheekh ee Hindiya ay booqdaan goobaha ay barakaystaan ee dhanka Pakistan ku yaala.